gelinta weligay ma isticmaalinoo inkastoo aan cunayay haddana ilama wanaagsanayn wax marka khayr ah aan qof uga sheego kuma arag aniga waxa gabayada aan u dhammaystiri waayana waxay ahayd xumaantiisa adoo cunaya see dadka ugu sheegaysaa naftaada marka hore soo inaad u sheegta ma saasi ku cuuriyaameen gabayadu oo ay cunus ku dhaafi waayeen insha Allah jeclaa inaan dhammaystiro wixii suuro gala mid wuxuu ahaa niman saaxiibaday ah oo gabiyaha laba nin oo gabaya saaxiibaday ah baa ii keenay qaad guri aan deganaa bay iigu keeneen habeen bay ahayd ramadaanna way ahayd bacda al-afur bay ii yimaadeen oo qaadka wada gurigaygii baan fariisanay su'aal baan weydiiyey markaan fariisanay nabay anoo qayilayna ama qiyaamihii dhacaa baan idhi goormaa iska daynaynaa geedka laba sibay uga kala jawaabeen su'aashaas nin si cara leh buu iigu jawaabo wuxuu yidhi geedka waa innagaa rabnoo jecele adoo jecel nala cun ama noo dhaaf ninna wuxuu igu yidhi nin geedkan intaad cunaysi wax badan oo dhibaatooyinaha ka dhacay waddanka geedkaagaa iska cunayso meel la fadhisi waanad ku nabad gashay meeshaad la fadhisi ha ku jusaarin waxaa laga yaabaa ta iska socotoo taraaraxdo inaad khatar la kulmi lahayd qaadkaa ku dabraday meesha kugu dabraadna ku noosho ku nabad gashay marka ninkaa jawaabta dabacsanoo dambe ayaan ku halqabsaday tixusaasi ku curatay waxay oranaysay mashquul lagu fogaadiyo marqaan maalin iyo leyla geedaha la muudmuudsadiyo cunista miirooga masjid laga fogaadiyo naftoo meel mugdiya aadda ma og tahay malaasoo ma aha muumin shaqadiisa qofka inuusan muraadkiya dantii milicsan oo eegin maalintoo dhan inuu meel fadhiyo oo mirfaha ruugo muddo iyo inuu maal qasilo murugna soo hooysto ma og tahay malaasoo ma aha muumin shaqadiisa qofka inuusan meel marin xilkii eebba magansiiyey musuq maasuq been iyo inuu madax aday keeno maqashiya macluul inuu u dilo maamada u haysa masruufkii inuu laba majood ama marduuf siisto ma og tahay malaasoo ma aha muumin shaqadiisa maal uusan magi karin inuu maalinle u ruugo inuu ka maato meel laga yaqiin soona mari waayo waxaan meel tegayn iyo inuu been ku maro dhaarta hadal malagi galay inuu muran ku sheekeeyo ma og tahay malaasoo ma aha muumin shaqadiisa maadada aqoontaa qofkoo maanka gelin waaya sidii geel murjaan helay qofkoo doog u maxabaysan ma og tahay malaasoo ma aha muumin shaqadiisa saasuu ahaa waxaa jiray nin kale oo saaxiibkay ahaa isaguna saxaabul ciyaal ahaa qaadka cuni jiray maalin buu anoo iska seexday uu wacay wuxuu yidhi xaggee jirtaa xaafaddii baan jiraa anaa noo haya maanta ii kaalay warhaadha ciyaalkii u gee baan idhi waxa aad noo hayso wuxuu yidhi maya iyagana waan u geeyey annagana waan nool hayaa imagu lacag baan hayaa ii kaalay war ii kaalay wuu ikixeeyey ninkii qaadkii buu noo soo iibiyey gurigiisii baan tagnay naloo goglay intii gabadhii shaaha noo karinaysay ayaan fiiriyey ciyaalka iyo gabadha xaafadda dadkii joogay waxaa ii soo baxday bacaha waxaa noogu jiraa oo qaadka aan wadano qarashka aan ka bixinay qoyskan inuusan ka go'in baa ii soo baxday baahi aasaasi yahay ii muuqatay oo reerku u qabay lacagta aan qaadka ku cunayn farxad yarana waa ii muuqato waxaan isla haddaanan la socon lahayn shaaha looma kariyaanba marka waa laba kelimo kani
waxay tiri caqlininu ku jiro oon qalbiga caarar laga saarin amaan camalladiisii ibliis cadowga taageerin cagaar iyo cadaab dunida yaal cood ma dhaafsado intuu geeda cuno reerihii lama coloobaan qoysas badanaa u dumi jiray barnaamijka lamaanayaal badan baa isku qabsan jiray daraaddiis waxaan xasuustaa tix yaroo kale oo kaftan ahayd iyaduna laba eray oo kale ah nin baa jiray isagana aan wadaagi jiray saaxiibba ahayn nin caafimaad uu ahaa oo dhakhtar ah aadna uu u jeclaa qaadka marka siduu u jecel yahay baan la yaabay marka laba kelmado dhowr oo kaftana waxaan ku idhi nimcoolayda xoolaha ah iyo ninaan xishoonaynin nuurow naq nuuceenna iyo naylahaa cuna bini aadan wax gartoo xishoonayaa geeda iskama daaqeenniyo niman aan xishoonayn annagoo kalaa naylaha waa la yaqaana soo maa gobdoonow gabayaa laga dhigi karaa dhibaatooyinkiisana wax badan baan kala socdaa oo naftaydaan waa baraatigareeyey waa waxaan soo taabtay mararkii aan erayadaas bilowga ah samaynayena waan isticmaali jiray haddii aanan isticmaalayna aan sidaa u bilaabi lahaana oo dhammaystiri lahaa waxaa iga hakanayay su-aashaas bay ahaayeenoo waxaan islahaa risaalad naftaada aadan ku qancin bini aadanka kale ha u gudbinin macno ma yeelanaysee haddii ilaahay i karsiiyana hadda wixii aan ka dhamay